السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Cream Trading Official oo ah runtii goob aynu ku bixino culumta tradingka gaar ahaan waxa loo yaqaano forex-ka qaybtiisa institutional concepts-ka iyo sida ay u trade gareeyaan iyo runtii binary and digital option-ka oo iyaguna runtii aanu bixino waxa loo yaqaano market structure-ka iyo candlestick psychology-ga iyo runtii istaraatiijiyada markaasi ku tacalluqa. casharkan runtii waxaanu ku bixin doonaa oo aynu ku qaadan doonaa qodobo runtii muhiim ah oo ay tahay in trader kasta uu runtii soo maro haddii ay tahay qof forex trade gareeya iyo hadduu yahay qof runtii binary ama crypto trade gareeya. ogow waxaa jira xaqiiqooyin uusan cidlo kula wadaagayn laakiin adigu laftaadu ay tahay inaad soo tijaabiso. waxaa jira runtii waxyaabo macna marka technically lagu tusayo ay fududahay inaad barato laakiin waxaa jira wax macna technically intaanay noqon in aad soo tijaabiso mooyaane aanad runtii ogaanin ama runtii ilaa lagula wadaago mooyaane. waxaan ku qaadan doonaa runtii 7 qodob ilaa 6 qodob oo ay muhiim tahay inuu trader kasta markaa ku darsado xisaabta isla markaana uu isku tijaabiyo kow inuu soo maray haddii uusan soo marinna uu ku darsado macna sidii uu uga badbaadi lahaa farowgeed markaasi qabto. waxaan u bixinaa casharkeenan xaqiiqooyin ka qarsan oo aad ku noqon kartid profitable forex and binary option trader. profitable waa maxay? profitable macna waa marxaladda u dambaysa ee trader kasta uu isku dayo in uu gaadho. waa marxaladda loo wada ordo ee qof walba isku dayo inuu gaadho. way kala duwan tahay qofku inuu ku dhahdo waxaan ahay trader ama waxaan ahay qof faa'iido sameeya iyo inuu ku dhahdo waxaan ahay profitable trader. profitable traderku waa marxalad u dambaysa ee qof walba markaasi uu gaadho oo insha Allah iyadana ay eegi doono bal marxaladaha ka horeeya si uu qof walba iskaga dhaxarko markaasi marxaladda uu marayo. dib ayaynu ka qaadan doonaa casharkaas laakiin hadda kan inoo yaala waxa weeyaan in aynu bal aragno 6 qodob ilaa 7 qodob oo ay muhiim tahay inuu trader kasta markaasi soo maro. okay qodobka koowaad ee ay muhiim ka tahay runtii in uu markaasi trader walba soo maro ama laga yaabo inay traderka ku noqoto carqalad uusan garan waayo meel ay dhibaatadan kaga socotana uu fahmi waayo waxa weeyaan in uu qofka traderkii markaasi yahay not having a trading plan. ma tihid qof haysta trading plan. macna trading plan maxaa looga jeedaa? trading plan de wax walba waxay leeyihiin plan iyo runtii qorshe ayay leeyihiin. wax walba waxay leeyihiin plan iyo qorshe ayay leeyihiin. without plan there is no goals. ma jirto meel allaal iyo meel aad runtii u socoto haddaanad plan iyo qorshe lahayn ma imanayso. marka maxaa loo baahay inuu qofku ku socdo goals. inaad garanaysid tradeska aad qaadanaysid, inaad garanaysid inta trade aad galaysid, inaad garanaysid lacagtaad khasaarinaysid, inaad waxaas oo dhan aad garanaysid waxay soo hoos galaysaa markaasi trading plan-ka. okay haddaba maxaynu leenahay? waxaynu leenahay plan your trade and trade your plan. ha noqdo waxaan aad ka ganacsanayso maadaama aad meeshii lacag kaga ganacsanayso, maadaama doonayso dhaqaale ka samayso, maadaama doonayso inaad nolol xornimo la dareento, waa in waxaaga ay ku noqdaan wax markaasi qorshaysan. waa inaad maalin kasta qiyaasi kartid ama week kasta sii qiyaasi kartid number of trades aad qaadanaysid inaad qaadatid. waa inaad maalintaas sii qiyaasta inta trade aad qaadan kartid. haddii trade kasta oo qurux badan aad aragtaaba ku cajabiyo oo aad qaadatid ma tihid qof tradeskiisu ay qorshaysan yihiin. haddii lacag tusaale ahaan aad maanta lacag samaysay oo aragto fursad kale oo iska qaadato adigoo balaankaaga ku socon ma tihid trader balan leh. haddii aad lacagtii aad ugu tala gashay already khasaarisay oo fursado kale aad ku soo celin kartid aad aragtid oo ku degdegtid aad qaadatid ma tihid qof markaasi qorshe iyo balan ku socda. waxaa loo baahan yahay inaad naftaada weydiiso oo qodob runtii muhiim ah, ma waxaan ahay gambler mise waxaan ahay qof trader ah? way kala duwan yihiin. inaad qof gambler tahay macna gambler maxaan uga jeednaa waa khamaar iyo inaad tahay qof ganacsada maxay ku kala duwan yihiin? simple as question. waxaa jirta runtii qodob yar oo muhiim ah oo la yiraahdo traderisku ama qofka traderka ee profitable ka baynu ka hadlaynaa waxa uu eegaa constant. waxa uu eegaa constant profit macna constant joogteynta. maanta $1 baan sameeyay, April 1 baan sameeyay, shalay 2 baan sameeyay, tomorrow 300 baan sameeyay, ku xiga 200 baan sameeyay, kan 50 baan sameeyay. macna waa constantly sida wuxuu joogteynaya ayuu markaasi eegaya. gamblerkuna muxuu eegaya? gamblerku waxa uu eegaaba inuu leenahay quick profit. macna maanta 100 baan sameeyay ma sha Allah, bri 600 baan sameynaya, 700 baan sameynaya, 1000 baan sameynaya, wiiga dambe 2000 baan maraya, ka ku xiga 3000 baan maraya, 4000 baan maraya. quick profit ayuu si degdeg ah u doonaya.
laakiin uu ka duwan yahay baynu nidhi waxa loo yaqaano traderku hadduu doono $5 ha sameeyo laakiin wuxuu isku dayayaa in $5 uu sameynaya ay noqoto constant inay si joogto ah uu sameeyo. qofkana wuxuu doonayaa in 1 day 2 day to week in uu ku noqdo runtii qof markaasi wixiisa ay noqdaan qof heer sare markaas markiiba ka gaadha. taasina ma shaqeynayso. qodobka labaad ee ay muhiimka tahay inaad isweydiisaa ama aad xisaabta uu kugu jira waxa weeyaan in aad isweydiisid what's market to trade. macna marketkan aad trade gareynaysa laftirkiisa inaad su'aal iska weydiiso before aad trade gareyn. before markaad maanta suuqa soo gasho ama markaad suuqa soo gasho inaad su'aal isweydiiso. marketka aad trade gareynayso waxa kugula jira runtii traders baa kugula jira maaha wax kaliya aad go'aan ka qaadanayso maaha wax kaliya aad go'aanka ka gaadhayso. maadaama sidaa tahay waa inaad dadkii kale aragtidooda ama ujeedadoodu halka ay ujeedo aad qiyaasi kartaa. waxaynu leenahay waa inaad isweydiisaa what traders are doing. maxay qabanayaan dadka traderska ee suuqan ku jira markaan lacag soo furano traderska lacagtan ku jira maxay qabanayaan yaa controlaya suuqa ma buyers baa controlaya mise sellers baa controlaya. waa inaad sidoo kale niyadda ku darsataa waxa loo yaqaano follow the trend. waxaad maqashaa wax badan traderska oo adeegsanaya the trend is your friend. ogow the trend is your friend marka ay leeyihiin macna waa in aad qiyaasi kartaa trendigu ma up trend ba mise waa down trend mise suuqu meel kala wareega ayuu taagan yahay. waa in sidoo kale aan trade gareyn baynu nidhi suuqa loo yaqaano choppy marketka ama se consolidation marketka oo runtii ah suuqyada inta badan aan directionka iyo waxyaabahaas aan lahayn. sidoo kale waa inaad isku daydaa oo naftaada badho waxa loo yaqaano inaad samaysato sombears macna lacaga kooban 10 lacagood 15 lacagood 4 lacagood 3 lacagood hal lacag haday doonto aan noqoto lacago gaara oo aad week walba trade gareyso oo aad barato sida ay u dhaqmaan waa inaad samaysataa oo runtii way ku caawin doontaa. halkan oo kale waxaanu BL kan lane ayaan hoos ka marinay oo aynu ga jeedno don't fight against the market momentum oo runtii ah qodob muhiim ah. marnaba ha isku dayin inaad ka hor timaado market momentumka marnaba ha isku dayin inaad directionka suuqa u jeedo aad ka hor timaado oo macna suuq baad soo aragtay inuu uptrend yahay imbalance correction imbalance correction imbalance correction baad soo aragtay. imbalance correction kaasi waa uptrend ama se waa downtrend. imbalance ba dhaqaaqay correction baad aragtay imbalance kala dhaqaaqayay waxaad arkaysaa in uu markuu madaxa higher jabsado inuu sameyn lahaa waxa loo yaqaano correction ama pullback. ogow pullback soo dhici doona haddii xitaa aad sii ogtahay ha isku dayin inaad ka faa'iidaysato. sug pullback marka uu dhamaado kadibna trend cusub la qabso uptrendka ama downtrendka raac. ha isku dayin markaas inaad momentumka suuqa marnaba ka hor timaado. qodobka labaad ee isaguna ah inaad ogaato suuqana trade gareynaysa aad macluumaad ka haysato ayaa runtii qodobkaasi loo yahay. okay qodob saddexaad baa isaguna runtii jira oo isagana ay muhiim tahay in uu qof walba markaasi uu garanayo oo ah waxa aynu runtii u bixinay proof market analysis. cadee market analysis kaaga ka saar suuqan aragtida ah selna waan u gelayaa bayna waan u gelayaa ka saar. isticmaal waxa loo yaqaano technical tools xoogan. isticmaal technical tools ka aad isticmaalaysaa ha noqdaan wax marka hore aad tijaabisay isla markaana aqoon ku dhisan yani noqon macna waxaas la yiri saas u noqdaa isla markaana saas u noqonaya si tijaabo ama nasiib oo kala ha noqdo wax aad tijaabisay oo qof aqoon la marka hore aad ka baratay. tusaale ahaan macna market structure baa isticmaalaya. ogowde market structure ma isticmaali karayo qof suuqi intuu soo ururiyay oo higher highs aan garanayn lower lowgi suuqa aan ku kala saari kareyn just waxa laga yaabaa trend line inuu suuqa ku saaray ama horizontal line ku saaray ama uu indicator ku saarayba. this is not market analysis. taa lama yiraahdo market analysis. market analysis ka waa inaad higher iyo higher low garan karto waa inaad relationship ka dhaxeeya time frames ka garan karto waa inaad garan karto waxyaabaha liquidity-da waa inaad garan karto oo darbooyada suuqu sameysanayo waa inaad garan karto wax loo yaqaan imbalance-ga suuqu meesha uu ka jiro ee waajibka tahay lagu soo celiyo. waa in wax soo dhami ay ku duuban yihiin. haddii aysan waxaas oo dhan ku duubnayn runtii ma aha analysis-kaagu runtii kii loo baahnaa ma aha. sidoo kale waxaynu nidhi never rely on solely indicators. weligaa iyo allaha ha isku dayin inaad markaasi isticmaasho waxa loo yaqaano indicatorska oo aad ka dhigato muhiimadda koowaad. macna waad isticmaali kartaa indicatorka oo aniga laftarkaygu indicatorka qayb aan isticmaala jirta oo ah waxa loo yaqaano divergency-ga aan ka isticmaalo. laakiin ha isku dayin baan u jeednaa macna inaad ogaato aad tiraahdo indicatorka ayaa go'aanka suuqa isiiyay. indicatorka waa caawiye
natiijadii aad soo heshay technical analysis-ka ku soo heshay ayuu ka yahay 1% ayuu ka yahay in uu markaasi waxa uu ku sheegayo waa waxa aad isha ku arki karaysay indicator-ku ma aha wax suuq lagu analyze karayo laguna go'aan qaato sidoo kale ha isku dayin automatic systems waxa la raado robotiska like waxyaabahaas oo kale inaad iyagana aad waqti geliso oo aad isku daydo inaad natiijo ka gaadho sidoo kale isku dayba inuu niri inaad ku trade garayso wax loo yaqaan runtii pure price action waa toolska suuqa oo isticmaasho iyo candlesticks-ka oo isticmaasho iyo runtii structure-ka suuqa oo qalalan oo aad runtii isticmaasho adigoo markaasi si cilmi leh markaas u baranaya okay qodobka saddexaadna marka waa inaad cadayso analysis-ka suuqa waa inaad cadayso baynu niri analysis-ka suuqa okay qodob runtii afraad baa isaguna jira oo ay runtii muhiim tahay inuu qofku ogaado waa waxa loo yaqaano emotional and revenge trading ay leeyahay sorry waa muhiim inuu qof walba runtii qodobka dareemo ogow suuqan maadaama de lacag ku trade garanayso emotions buu leeyahay waxyaabo badan baa ku imanaya waxayna ogaanaysaa emotional trading waxa loo yaqaan runtii waa waxyaabaha ugu khatarsan ee runtii inta badan dadka lumiya inta badan maadaama wixii psychology la xiriiro oo lacag galayso trade galayso niyadaada fikir baa ku imanaya waxa ku imanaya in aad timaado inaad cabsato inaad mararka qaar kood wax iska naawulato waxyaabahaas oo dhan waxa ka badbaadin karaya inaad qodobkan aad si ogsoon tahay sidoo kale waxaad ogsaanaysaa wax loo yaqaano fear and agreena ah laba qodob oo runtii oo go'aamiye qofka guusha iyo guuldarrada ku go'aamin kara isagoo qofkaasi markaasi talabaad laga yaabo inuu qof experience yahay haddana waa labada qodob ee inta badan dhulka la gooya waxay kala yihiin waa cabsi iyo damac weynaan cabsida waa maxay cabsida waxa weeyaan inaanad garanayn waxaad isticmaalayso trade-ka aad qaadato aad ka cabsanayso trade-kan in haddii uu asalka kaaga dhaco cidi ku qabsato haddii macna allahuma istacaanay uu sidoo kale ay kugu timaado lacagta aad khasaarto lacagta laga doonayo lacagta ay lacag cidi lahayd ahayd haddii sidoo kale waxyaabahaasoo dhan hadday jiraan runtii kama gaadhisid go-aan trade-kaaga kama gaadhisid cabsi ayaa kugu imanaysa trade saxa ayaa laga yaabaa inaad ka baqatid oo aanad gelin kuwii qaladka ahaana waxaa laga yaabaa inaad geshid oo aad runtii markaasi los garaysid greedna waa damac weynaan adoo $100 haysta inaad iska naawalato inaad $2,000 u bedesho adoo $10 haysta inaad $10,000 iska naawalato adigoo aan weliga ayaa lahaa shaqayn $1,000 inaad iska naawalato inaad $3,000 shaqayso waa greed waa cabsi waa macna damac weynaan inay iskaga ka timaado taasna waxaad kaga badbaadi karaysaa inaad samaysato qodobkii horeeyay ka hadlaynay ee ahaa balaanka iyo qodob runtii dambe oo inoo soo socda revenge trading kuna runtii waxa weeyaan in aad isku daydo marka ay kugu timaado haddii ay macna losses oo kale kugu yimaadaan marka aad dareentid inay losses kugu yimaadaan runtii qaado nasasho qaado break yar qaado ama jooji ugu yaraan tradingka yara jooji muddo jooji kadibna muddo kadib kusoo noqo oo isku day inaad aad samayso deganaan yara samayso sidoo kale isku day waxaan inta badan aan isticmaalno oo ah haddii qofku ay ku timaado 50% akoonkiisii uu los gareeyo waxaan runtii kula taliyaa in uu sameeyo dib u noqdo oo uu joojiyo gebi ahaanba tradingka uu ku noqdo aqoontiisa dib usoo testgareeyo dib usoo tijaabiyo dib markaasi uu u soo soxo waxa ka khaldan haddii aad isku daydo in runtii aad ka samayso adigoo losiskaa galay inaad inta kale soo celiso waxay kugu noqonaysaa inaad cadhooto emotions isku furto kadibna intii kalena aad gubto halkan image yar baa inaga muuqda shimbirtaas is leeyahay qabo aygani saa ka muuqata waxaad arkaysaa in shimbirtu ay dee bannaan taagan tahay isaguna uu haddii uu hadda halkan ka boodo muxuu samayn karaa waxa uu samayn karaa in uu markaasi dee iyaduna iska sii dhaqaaqdo isaguna uu dhulka galo that's why ayaa trainingkuna runtii sida taasoo kale lagu qiyaasaa isku day haddii aad dareento losses badan inaad dib u baxdo week 2 week 3 bilood bil waxay doontaa kugu qaadato inaad dib u baxdo kadibna aad waqti qaadato naftaada la soo shawrto aad soo fadhiisato wax ka khaldan kadibna suuqani mid maanta iyo bariya saadama baaba'aya maaha geeri ayuunbaa ka kaxayn kartaa waa wax intaasoo sanno soo jiray intaasoo dambana sii jiri kara aad isa soo saxdo adigu ha daalin macnaa suuqani maaha mid isagu daalaya oo dhaqaaq baxsanaya laakiin adigu ha isdaalin qodobka kale muhiimkana waxa weeyaan waxa la radaa the best way to trade without losses is to manage your losses waa qodob runtii muhiima qodobka ugu wanaagsan ama habka ugu wanaagsan ee aad u trade gareyn karto adigoon losses gelin waa inaad xakamaysid ama manage garaysid losses-kaaga lama odhan waa inaad khasaare gelin khasaare wuu imanayaa oo mararka qaarkood ama wixii oo kuu saxsan ayaa laga yaabaa in dee news kugu soo baxo waxaa laga yaabaa in adiga laftirkaagu bini aadan baa tahay qodobadii aad qodob ka degdegto
maxaa ku ilaalinaya waxa ku ilaalinaya risk management iyo waxyaabahaas ku ilaalinaya laakiin the best way to trade without losses is to manage your losses okay qodobkaasina runtii waa qodob muhiim ah oo qof walba tahay inuu markaasi niyadda ku darsado okay qodobka shanaad aynu insha Allah u gudbi doonaa oo isaguna runtii muhiimadiisa leh oo ah lack of trading journal isticmaal oo ku xidhnow trading journal haddii aanad trading journal lahayn ma gaadhaysid guul la taaban karo ama se ma xaqiijin karid waxa loo yaqaan runtii guul la taaban karo waxa la yiraahdaa shay kasta oo runtii aan lahayn wax lagu cabiro ama mitir ama wax la saaro ma laha wax runtii qiimo ah maxaad ku ogaan kartaa maanta anigu istoonay inaan sameeyo horumar iyo inaan sameeyo 6 bilood soo dhaafay maxaan isku ogaan karaa waa inaan qiyaasa 6 bilood ka hor maxaan kan taagnaa maxaan qaanay 6 bilood kadib maxaan qaanaa haddii aan doonayo tusaale ahaan inaan cabiro tusaale ahaan orodoo kale 6 bilood ka hor intee in leeg baan 10 minute carari jiray 6 bilood kadib haddaan exercise badan sameeyay 10 minute gudahood intee in leeg baan carari karaa 6 bilood gudahood aqoon intee leeg baan lahaa 6 bilood kadib aqoon intee baan leeyahay haddii aan runtii cabirkaas aanad lahayn de runtii waxa iska noqonayaan ha iska socote saloogay dhaha wixii ay la oran jiray oo ah inaad macna iska socotune aanad runtii lahayn qiyaas iyo miqyaas aad ku soconayso trader kasta waxa uu baahan yahay inuu samaysto runtii trade journal ku saabsan weekly basis ama monthly basis ama mararka qaarkood yearly basis ogowna runtii oo waajib tahay inaad ogaato ama aad qabato institution kasta oo adduunka jira dukaan ha noqdo mid ka weyn oo bakhaar ha noqdo bangi ha noqdo dawlad ha noqoto ha noqdo waxyaabaha Allahumma istacaanay ganacsiyada jira ha noqdo ma jirto cid aan lahayn waxa loo yaqaano runtii waxa loo yaqaano journal ama waxtay macna ay ku ilaaliyaan recordingkiis markay ilaaliyaan ayaa ay meheradu qiyaastaa inay ganacsigeedii hore u socotay iyo inay dib u baxday haddana laakiin taas adigu lahayn kuma suura galayso okay halkan waxaan ugu hayaa runtii qodob muhiim ah oo ah trading journal aan ugu talagalay inay isticmaalaan ardayda gaar ahaan qaybta binary and digital option ka isticmaasha isticmaal trading journalkan maalinta qoro tusaale ahaan Monday ama Sunday qoro ama Saturday aynu Soomaali ku sheegno sabti qoro markaad sabti qorato maxaad leedahay sabti trade kaad qaadatay isweydii ma ATM ba mise waa OTM ATM iyo OTM markaad saa u kala qorto ee qodobkii qorato isticmaal lacagtii lacagtii bay ahayd GBP USD ama Euro USD bay ahayd halkan ku qoro isticmaal inaad balance-gaaga qorato bil ama 10 week ama week baan leenahay marka aad wado dib u qiimee imisa OTM aha imisa ATM aha maxaa lacagahan qaatay ahaayeen lacagaha systemkay ku fiicnaa balance-gaygu sida ayuu koray haddii aad trading journal kan isticmaasho wax badan baad ogaanaysaa waayo tusaale ahaan maanta haddaan trading journal lahayn de 2 week ka hor wixii igu dhacay ma ogi oo read wali laabay laakiin haddaan trading journal leeyahay markaan trading journalkii ku noqdo waan soo ogaanayaa wixii dhacay waxay ahaayeen iyo halka ay ka yimaadeen iyo runtii sida ay ahaayeen labadaba waan soo qiyaasi karaya without trading journal there is no runtii ma jirto goals aad gaadhiso iyo waxaad xaqiijin karto sidoo kale ardayda isticmaashayaguna qaybta FX tradingka iyaguna insha Allah waxay isticmaali doonaan trading journalkan oo ah waxay ku ogaan karaan awoodda uu systemkoodu leeyahay tusaale ahaan kii hore kale haddii aad soo qiyaastay macna traderskaaga aad qiimeynaysay 20% 5% 10% lacagaad khasaartay wad qiyaasi karaysi kanna sidoo kale waxaan ugu talagalnay ardayda isticmaasha waxa loo yaqaano forex tradingka oo runtii iyaguna ay muhiim tahay kan waxaan idin dhigi doonaa insha Allah descriptionka videogan aan hadda duubayo ayaan insha Allah inoo dhigi doonaa maxaa la doonayaa ardaygu isweydiiyo trading journal kan isticmaal kadib maxaa odhanaysaa lacagtii aad gashay ayaa la doonayaa inaad gelisid meeshan marka lacagtii halkan aad geliso halkan waxaad gelin doontaa hadii aan inoo yara muujiyo si ay inagu cadaato halkan waxaynu insha Allah gelin doonaa lacagtii aynu galnay aynu gelin doonaa time-ka aynu galnay aynu gelin doonaa date-ka aynu soo kala sheegi doonaa SL-ka aynu gelin doonaa haddii markaas ay SL-ka inaga dhacdo SL-ka aynu soo celin doonaa haddii kalena halka TB-ga aynu gelin doonaa intan dambe iyada ayaa isku keen buuxin doonta intan dambe ayaa isku keen buuxin doonta halkan waxaynu sheegi doontaa waxa loo yaqaano lacagta aynu ku bilownay $10 $100 $1000 maybe $500 intay doonto ha noqoto wuxuu ku sheegi doonaa muddo markaad isticmaasho laba shay baad ka faa'iidi doontaa markaad bil isticmaasho waxaad ogaan doontaa bisha percentage-ka winnings-kaagu inta uu gaarsiisan yahay 70% 80% 95 80% haddii uu markaas ka hooseeyo 65% waxa la doonayaa inaad ku noqoto aqoontii wuxuu sidoo kale ku sheegi doonaa lacagta aad trade walba ku khasaarinayso oo macna hadii aan akoonkayga $500 ku jirto oo trade qaato euro USD
trade-ka ku xiga een qaadanayo lacagtan ku qaadan laana waan ka dhaxarki doonaa oo waad ka dhaxarki doontaa meelahan ayaan runtii nagu soo diyaariyay oo waa kana waxaan idin kula wadaagi doonaa dhanka runtii description-ka ayaan kula wadaagi doonaa maxaynu samayn doonaa runtii saan idin sheegay waa kana oo waxaan idin tuso hal mar aan lacag ku tijaabino halkan ayaan runtii gelinaynaa baynu nidhi waxa loo yaqaano ka euro USD ayaan runtii geliyay sidoo kale ayaan u geliyay sorry waxaan u geliyay euro USD ayaan runtii geliyay okay euro USD ayaan geliyay markaynu sidatan u gelinay halkan waxaynu gelinaa runtii time-ka aynu qaadanay ama waqtiga waayo waqtigu dee runtii wuxuu naga caawinayaa inaynu garanno ayuu naga caawinayaa waxaan xilliga ay nagu dhaceen inaynu gelino xilliga ay nagu dhaceen waqtigaasaan geliyay halkan date-kii baa laga doonayaa halkan date-ka ayaan runtii gelin doonaa isagana waxaan gelin doonaa runtii 14 bisha saddexaad okay ayaan intaasaan gelin doonaa runtii okay markan inta taasay runtii saa u geliyo maxaynu leenahay halkan waxaynu gelinaynaa lacagta markaasi SL-keenu noqonayo lacagta SL-keenu noqonayo maybe ka soo qaad 30% ama 30 bip ayuu runtii ahaa markaynu inta taas gelino maxaynu arkaynaa in uu 30 bip ahaa ogowna de marka hore starting balance-gaaga waa inaad garanayso oo tusaale ahaan halkan aad lacagta aad ku bilaabayso geliso tusaale ahaan anigu waxaan iska geliyay 400 baan iska geliyay waxaanan ugu talagalay inaan risk gareeyo 4% ayaan ugu talagalay inaan risk gareeyo inta markaynu gelino 30% haddaba haddii SL-ka kaaga dhacdo maxaad leedahay waxaad soo celinaysaa minus 30 haddii ay TB kugu dhacdana TB-gaagii geli tusaale ahaan 70 bip TB-gaagu ahaa inta taasaan gelinaya muxuu leeyahay hadda hal trade baan galay inta dambe isagaa isku buuxinaya account bibiska aad ku guuleystay waa 70 lacagta account-kaaga hadda ku jirta cash-ka waa 430 gain loss-ka aad heshay waa intan muhiim aha breakdown laguguma samayn hal trade baad qaadatay $16 ayaa lagu talagalay inaad markaa trade-kaas ku risk garayso oo SL-kaaga ku fadhiisiiso next trade-ka ku xiga SL-kaaga wuxuu noqon doonaa lacag $17 waxaana isticmaali doontaa sida tan ayaad soo wadi doontaa haddaba haddii aad isticmaasho halkan hadda muxuu ku leeyahay total average wins-ka waa 70 wuxuu kuu sheegi doonaa bibiska aad ku guuleysatay losseska waxaas oo dhan baad runtii ka faa'iidi doontaa oo runtii uu kuu faa'iidin doonaa waxaana kugula wadaagi doonaa qaybta description-ka ayaan runtii kugula wadaagi doonaa okay hore ayaynu soconnaa markaas waxaynu isticmaali doonaa sidoo kale qodobka lixaada lock of money management without money management ma gaadhaysto runtii result la taaban karo ama natiijo la taaban karo ogow trading-ka waxaan loo yaqaano waa risk ama high risk ayuu runtii leeyahay waxaana kaa badbaadin karaa adigoo markaasi isku daya inaad riskiga mar walba ogsoonaato iyo waxa ka iman kara hal trade ama tradeska oo dhan ha ku lumin macna inaad isku daydo inaad riski garayso ogow weligaa ayaa lahaa inaad macna dadaalka u badan aad siiso in aad isku daydo inaad lacagtaada ilaashato halkan waxaynu leenahay runtii don't try make to massive gains in a percentage returns ha isku dayin ama runtii ogow in ay kugu iman karto runtii percentage-ka aad damacsan tahay inaad samayso ee aad ku guuleysato wax ka duwan inay kugu dhici karto maxaa loo baahay inaad ogsoonaato inaad rumaysnaato waxa loo yaqaano long term results-ka long term results waa maxay long term results waa inaad isticmaasho weekly basis monthly basis yearly basis oo ah macna week-gan waxaan ku talagalay inaan 50 bip qabto week-gan waxaan ku talagalay inaan 7 trade qaato week-gan waxaan ku talagalay inaan 4 trade qaato bishan waxaan ugu talagalay inaan 20 trade qaato sanadka waxaan ugu talagalay inaan lacagta inta leeg sameeyo waa inaad sida taas u socotaa laakiin haddii ay runtii waxaaguba tahay 10 week 10 cisho gudaheed halkaa ku gaadh runtii kuma noqonayso ama se kuma suura galayso qodob runtii muhiim ah ayaa runtii isaguna bartan ku jira oo ah rule 1 of a trading is to protect your capital not making money rule-ka koobaad ama qodobka koobaad ee trading-ku waa inaad ilaashato lacagtaada ma aha runtii inaad samayso lacag qodobka koobaad ee trading-ka la sheegaaba waa inaad ilaashato capital-kaaga ee ma aha inaad runtii samayso lacag isku day inaad capital-kaaga ilaashato before aanad lacag samayn kadib ayaad lacag aad samayn doontaa hadda isla qodobkii hore lacagta management ayaan ku jirnaaye waxaa la yiraahdaa maxay time has no period or money isku day inaad markaa qodobkaas aad runtii niyadda ku hayso hal isku dayin inaad hal trade waxba hal trade natiijo la taaban kara ka gaadho macnaa inaad hal trade account-ka ku triple tibaarto ha isku dayin ku markaa xukumi naftaada oo ha isku dayin inaad naftaada ku dhaleecayso inay short time results gaadho inaad week ku samayso 10,000 ama 5,000 ama $1,000 naftaada
markaasi carqaladeen ama ha ku charge gareen. isticmaal waxa loo yaqaano inaad isku daydo inaad isticmaasho weekly resultska. nin loo yaqaano Steve Barnes oo runtii suuqanay badan ku jiray ayaa waxa laga hayay wuxuu yiri with new jobs people are okay with low starting pay until to gain experience. dadka macna shaqaalaha cusub ee ka shaqeeya kambaniyada meelaha ganacsiyada kale waxa ay diyaar u yihiin inay ku bilaabaan low starting ilaa iyo intay helayaan macna experience ama ay muddo joogayaan sanad 2 sano 3 sano 4 sano qaar ku 10 sano inay ku shaqeeyaan lacag yar. laakiin qaybta trading loo yaqaan qofku marka uu soo galo IQ trading ama forex trading ama crypto trading waxa uu doonayaa bil gudaheed inuu akoonkiisa ku 3 jibaaro ama uu ku double gareeyo. taasina deeris ma shaqeynayso wax shaqeynaya maaha. mindsetkaas ayaa waxa uu sababaa in uu markaas qofkii si degdeg ah akoonkiisa u gubo. maadaama qofkii uu doonayo in la yiri forex lacag baa taale ka soo qaado in uu isku dayo degdego kadibna uu lacagtiisa loos gareeyo. marka runtii waa muhiim farqiga u dhaxeeyna waa inaad ogaato qofka sameeya profitka iyo qofka sameeya noqda big profit balka way kala duwan yihiin runtii. inuu qofku kudhaa profit baan sameeyaa sin hore u sheegnay iyo inuu kudhaado profitable baan way kala duwan yihiin. profitable waa qofka talaabo runtii qaada halka gaara. daily compound sheet ayaad isticmaali kartaa si aad markaas u samayso runtii waxa loo yaqaano results la taaban karo ama aad naftaada u ogaato bal koritaanka dhaqaale ee ay sameynayso. compound sheet kan iyada laftirkeeda waxaan kala wadaagi doonaa dhanka description kan kala wadaagi doonaa. halkan waxaad gelin doontaa dailyga ama dhayga ayaa kugu jira. halkan balance-ga lacagta aad ku bilaabayso ayaad gelin doontaa. tusaale ahaan waxaan geliyay $100 ayaa runtii geliyay. halkan waxaad gelin doontaa inta aad ogashahay inaad koriso. $100 waxaan korin doonaa 10% ayaan korin doonaa. muddo ayaan qabsan doonaa markaas. tusaale ahaan waxaan leeyahay 20 cisho ayaan ugu talagalay inaan markaasi lacagtaas koriyo. 20 cisho just ayaan ugu talagalay inaan lacagtaas aan koriyo. halkan ayaan calaamadsaday meel ka duwan oo calaamadsan kartaa adigu. sidatan ayaan u calaamadsaday. muxuu markaa kuu sheegayaa daily-gani? waxa uu kuu sheegi doonaa 10% maalinta kooda wax laga doonayaa $10 shaqeyso. maalinta labaad wax laga doonayaa $12 shaqeyso. ha isku dayin markaas inaad runtii lacag ka duwan shaqeyso. ha isku dayin inaad ka boodo inaad 5 cisho israaciso. ha isku dayin haddii tusaale ahaan adigoo maanta halkan maraya 16 baad maanta doonaya shaqeyso 177 oo haysatay. haddii aad loos gareyso dib maalin u bax. maalimuhu waqtigu ka dhici maayo. dib maalin u bax ama 2 cisho dib u deg dib u soo bilow. isku soo day markaas inaad bil gudaheed aad taas u wado. haddaad bil wado $100 waxaad bedeli karaysaa runtii lacag fiican oo ku ixtiraamta ayaad runtii u bedeli karaysaa. halkan sidoo kale waxa kuugu jira lot size kaad isticmaalaysay haddii aad forex tahay. haddii aad IQ tahayna just waxaad isticmaalaysaa lacagta tan ayaad qaybinaysaa oo 3 trade 4 trade usii qaybinaysaa oo runtii isticmaali karaysaa. isticmaal daily compound sheet-kan runtii wuu ku anfici doonaa. ha iskuna dayin inta badan inaad isku daydo inaad boodboodo ama aad 5 cisho isku raacsan 2 cisho isku raacso. waqtigu ka tagi maayo. iska sug inaad waqtigaaga qaadato markaas. okay qodobka 7aad ee aan ku soo gabagabayn doono waa wax loo yaqaano not respecting the process. haddii aanad ixtiraamin process-kan aad dhigatay ma runtii dee kuma shaqeynayo. macna process-ka waan aqaanaa mana ixtiraamayo dee ma shaqeynayso. macna inaad waxaan hadda aan baranayno macna inaad taqaano lama doonayo. inaad ixtiraamtaa la doonaya. inaad mentor ahaan u ixtiraamto. waa mentor kula socda. waa inaad dareento in ay waxani ku yihiin hage dusha ka ilaalinaya. haddii aad jabiso naftaada ha noqoto mid dareenta inaad wixii jabisay oo dib u noqo oo isku day inaad ixtiraamto. haddii aanad trading conceptskan iyo akoonadan gubanaya iyo waxyaabahan aad loos gareynayso waxaasoo dhan trading journalka kugu jira aanad ixtiraameyn dee runtii wixii waan aqaanaa mana ixtiraamaya ayay noqonaysaa. sidoo kale qodobkan waa muhiim. stop changing trading strategy. ha isku dayin ama jooji baynu leenahay waxa loo yaqaano istaraatiijiyada aad bedbedelaysid ama systemka aad bedbedelaysid. isku day naftaada waxa ay fahmayso inaad isticmaasho. weligaa ayaa lahaana runtii qodobkana waa muhiim. isticmaal ama ha isku dayin inaad joojiso waxbarashada ama learningka. ha isku dayin markasta oo aad wax barato markasta oo ay wax dheeraad kusoo galaan weeyaan. marka isku day inaad aqoonta mar walba siyaadsato. ixtiraam baynu nidhi oo respect gare process-kan si trader u respect gare time-kaagana qaado. waxa iman doonta markaasi inaad noqoto trader isku filan oo profitable trader oo runtii guul la taaban karo suuqa kana runtii ka gaadho. tradingku runtii ma aha gambling ama khamaar ma aha. waa wax u baahan xirfad oo waqti inaad geliso u baahan. the goal ka ugu weyn
trader kaste markaasi looga baahan yahay inuu sameeyo waa in uu sameeyo tradeska ugu wanaagsan. waxaa la dhahaa the goal is a successful trader is to make the best traders. goolka ugu weyn ee guuleystaha traderkii waa in uu sameeyo tradeska ugu wanaagsan. macna traders runtii qofna aan shaki ka geli jirin waa inuu sameeyo. lacag inuu sameeyo iyadu waa secondary ama qaybta dambe gelaysa. waxaanu leenahay waa inaad trades wanaagsan samaysaa. trade ay xirfadi ku dhisan tahay oo lagu dhaado halkaas ka galay halkaas kaga baxay sababtaas u galay si aad u qiimeyn kardho ayaa lagaga baahan yahay inaad muujiso. qodobka u dambeeya inuu runtii kusoo gabagabeynayna waxa weeyaan ee runtii dhiirigelinta noqon doona the success mountain is a simply made of past mistakes. guushu waa buur si fudud uga samaysanta qaladaadkaagii hore. midhaaniyada ku hay guushu baynu nidhi waa buur uga samaysanta si yaroo fudud khaladaadkaagii hore ee kaa soo dhacay ayaa runtii ay noqon doonta. ogowda buurta laftirkeeda waa qurux yaroo isku tegay. guushan aad gaari doonto ee buurta noqon doontaana waa qaladaadkii yaraa ee aad soo gashay qururuxeedii isku tegay ayaa runtii ku dhalin doona. intaasaynu insha allah kusoo gabagabayn doonaa waxaa loo yaqaano 7 qodob oo runtii aynu ugu talagalnay inuu qof kastaaba runtii isku dayo inuu fahmo, respect gareeyo, ixtiraamo. waxaan idinku boorinayaa runtii inaad isku daydaan inaad qodobadan fahantaan isla markaasna aad ku dhaqantaan. intaasaynu insha allah kusoo gabagabayn doonaa intaynu cashar ku xiga ku kulmi doono. insha allah casharka inoo sheer gareeya oo walaalihiina kale ee u baahan inaad gaadhsiisaan. sidoo kalena waxaad ka faa'iideysan kartaa courseska socda institutional conceptska ee forex tradingka iyo qaybta AT optionka binary and digital optionka oo runtii iyaduna ah istiraatiijiyada runtii aanu tijaabinay iyo waxyaabo badan oo runtii isticmaalnay oo aan ugu talagalnay in bulshada Soomaaliyeed runtii ay kaga baxdo waxyaabo badan ay ku dhiban tahay oo runtii lagu yiri way shaqeeyaan laakiin aan shaqeyn ama si ay waqtiga uu kaga dhacay. insha allah waa inoo casharkan xiga. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.